guri baan soo dhaqaa dhar baan u soo dhaqaa meeshaan guri ka raadiyaa xayiraada la saaray xeryaha qaxootiga cabsi laga qabo xanuunka COVID-19 dartii dhamaadkii bishaan soo dhaafnay waxaa maalin kasta magaalada Dadaab u soo shaqo tagi jiray tiro badan oo kamid ah dumarka danyarta ku dhaqan xeryaha kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray xaafadaha magaalada Dadaab sida inay dharka dhaqaan guryaha nadiifiyaan iyo waxyaabo lamid ah balse hadda ay saameysay xayiraada dhanka socdaalka ee lagu soo rogay xeryaha waxa u socdaa Dadaab shaqaa u socda waan iska xamaalanayaa jidka isku xira magaalada Dadaab iyo xeryaha ayaan kula kulmay qaar kamid ah dumarkan oo lugeynaya maadaama uusan gaari jirin waxaan ku soo lagay ifo lama tobanka ka lahay ilaa marshir Dadaab aan sooday saamaynta nagu yeelatay gaariga iska raac jirnay gaariga waxa la corona virus imaaday laslama gali karo wada laga cabsana number lugtiisa meesha ku gaari karo adoo lacag haysata hata in gaariyaha laga cabsado ayaa nagu dhacday qaarkood ayaa daalana waxayna ku nasanayeen jidka dhexdiisa waan socon weynay waan iska nasanaynaa ilaa markii gaariyaha iska barbaryeena xaaladana saas waxaan soconaa Dadaab meelaha iska soo xamaalneena waxaan la dhahay baa corona ayaa meesha jooga iduraan taalaay oo gaarihii waa inoo diideen waa iska xamaalanayna isku rafaasanahay maanta waxa la qabanaa dhulka la xaaqa daarada la xaaqa guriga la dhaqa alaabta la dhaqa oo ma garanay aan gaarina la haysanin oo walaalaha la dhaqa gaarin aan la haysan luweys hor gadaal oo orod gaariyaha saana noo dhaafaan ka dhab duruufo dhaqaale darri ayay guryahooda uga soo kaceen inkastoo aysan ku filayn waxyaabaha ay soo shaqaystaan aan ka imaaday ifa biibay dhawaan ka soo baxay maaragtaayo Dadaab baan iska xamaalna dhar baan iska soo dhaqanaa xamaal ma dhahdo oo maaragtaayo ka biraha oo maaragtaayo bisha oo maaragtaayo yaa iska soo shaqaysana marmar lug baan ku tagnaa si corona-gan u dhacay maaragtaayo gaarin waa la lacsan hatta dadka jidka marayo oo soo shaqaysanay dib baa u geysatay maxaa la dhihi jiray dadka soo xamaalnay oo dhan waa la kala cabsaday maxaa la dhihi jiray dadkii hadda duurka aadayeen qoryaha doonan jireen hadda qoryaha doonan laayihiin xanuunka inta dhacay gaari aan waasanahay waan rafaasanahay Dadaab u socda xamaalitaan ku jirnaa bulshada ayaa siyaabo kala duwan isugu tiirsanaa markii xayiraada la saarayna waxaa la dareemay culays badan maxamed baaruud xuseen warbaahinta Dadaab